Ciidamada Gorgor iyo Haramcad ayaa saakay xabadii ugu horeysay waxa ay ka bilaabeen deegaan u dhow magaalada Raaskambooni iyadoo 23 sargaal oo kamid ah saraakiishii ugu sareysay madaxtooyada Jubbaland ay isku soo dhiibeen xoogga dalka. Waajibkii ugu horeeyay uguna xoogganaa oo ciidamo uu soo diray Axmed Madoobe soo gaara maanta. Aroornimadii hore ee saaka ayaa waxaa lagu waabarisay dagaal xooggan oo ka dhacay deegaan u dhow magaalada Raaskambooni oo ciidamo ka tirsan Jubbaland ay xalay fariisimo ka sameysteen sidoo kalena ay ka duqeeyeen diyaarad saanad ciidan u sidan ciidamada xoogga dalka ee ku sugan magaalada Raaskambooni. Dagaalkan oo awood la isku adeegsaday ayaa la sheegay in lagu jabiyay ciidamada daacadda u ah Axmed Madoobe waxaana laga qabsaday gaadiid dagaal. Ciidamo ayaa sidoo kale laga qabtay Jubbaland. Dowladda Soomaaliya kama hadal gudaha dagaalka Gorgor iyo Haramcad ay ka gaareen dagaalkii saakay, laakiin Jubbaland waxa ay sheegtay inay guulo ka gaartay ciidamada dawladda inkastoo warkaas aan la xaqiijin karin. Dhinaca kale, Raaskambooni ayaa waxaa ku biiraya ciidamada NISA oo xilligan ka baxay magaalada Muqdisho si ay u kaabaan militariga Soomaaliya oo Raaskambooni awood ku maamulaya, qorsheynayana inay la wareegaan guud ahaan Jubbaland. Saakay ilaa iyo hadda waxaa socda dagaal xooggan oo u dhaxeeya ciidamo taabacsan Axmed Madoobe iyo sidoo kale militariga Soomaaliya waxaana ku dagaalamayaan deegaano u dhow magaalada Raaskambooni ee gobolka Jubbada Hoose. Inkastoo aan la ogeyn qasaaraha inta uu leeyahay haddana waxaa jira oo la soo warinayaa in ciidamo badan oo Jubbaland ka tirsan lagu jabiyay dagaalkaas sidoo kalena ay soo dhiibeen qaar kale oo ka tirsan oo lagu soo abaabulay inay la dagaalamaan ciidamada xoogga iyo Haramcad oo ku sugan magaalada Raaskambooni.